waxaan aaminsanahay ra-iisul wasaare ku-xigeenku inuu yahay naajix oo uu runtii ku guuleystay faylal waaweyn oo qarankan uu lahaa siduu hadda asagu akrinayay ka mida kuwaas waxaa weeye in dad la shaqays inuu dadka mas-uuliyiinta walaaladiisa inuu aanan arkin ilaa hadda dee qof mas-uula oo la shaqeeyey oo ay wax kala sheeganayaan runtii marka xinkadaas iyo caqligaasna waxaa un asal ka ah daacadnimada iyo deganaanshaha marka aada iyo aad baan runtii ugu hambalyeynayaa qof mas-uula maanta soomaaliya xilligay maraysa oo xil qabtay ummaddan u qabtay oo ceeb la-aan ilaahay ka saaray runtii waa inuu yidhaahda alxamdulilah waa uu najaxay qofkaas in adigoon ceeb lahayn oon hanti dhowrka kugu dhegdheganayn oo maxaanku dhahaa shacabka soomaaliyeed ku eedeyneyn oon dhiig gelin oo aan dhibaatooyin kala gelin oo aan lagu necbayn inaad xafiiska banaysaay waxay tahay guul runtii aada iyo aada u weyn ayay guulaha waaweyn ee qofku gaaray ayay ka mid tahay maxaa jira duruufta dalkeena ka jirta ayaa dad ceebaysa runtii si kastood u wanaagsan tahay iyo si kastoo niyadaada u fiican tahay duruuftaa ku ceebeynaysa runtii mar kale waxaan u mahad celinayaa walaalkay khadar oo aan runtii aan ku celinayo oon ammaanayo oo aan leeyahay waxaa waaye haddana nagama fogid waa xildhibaan wixii looga baahdo oo uu saalax u baahdo ama anugu uga baahdo meel dhowgu degan yaho waan u yeeranaynaa ilahay idinkiis nagama dheeraanayo waana kaaga mahad celinaa qarankaagana waa kaaga mahad celinaya waxa uu soo qabatay waxaan rajeynaya inaan kaa faa'iidaysano taa intaasaan kaga tegayaa saaxiibkay saalax wasiir hore khabiir waaye waddankan muddo kasoo shaqeynayay isagoo consultanty uu soo shaqeyn jiray wasaarado badan buu kasoo shaqeeyey waxaa waaye waddankan hay-ado badan buu kasoo shaqeeyey markii dambena wasiir buu noqday 2 wasaaradood buu wasiir kasoo ahaa marka aniga markii igu dambeysay oo aan wasaaradda dastuurka kasii baxay ayaan isku soo gaarnay bes laakiin ma wada shaqeyn runtii saalax nin asaguna waddankan saas ugu soo shaqeeyo waye macruufa dhaqan yaqaan kala ah suugaanta jecel labadoodu waxay ku fiican yihiin waa niman suugaanistayaala dhinaca suugaanta iyo maxaanku dhahaa af soomaaliga iyo dhaqanka soomaaliyeedba rag yaqaan waaye runtii niman kala fog ma aha waxaan rajaynayaa asagana nin aqoon-yahana waye nin runtii aan wax badan aan laga filanayo waye waxaan anigana insha allah ballan qaadayaa inaan sida ugu wanaagsan oo qof loola shaqeeyo inaan u wada shaqeyn doona haddii ilaha yidhaahdo waxaan rajaynayaa ninkii muhiimka ahaa oo shaqooyinka adag noo qaban lahaa runtii inuu yahaan rajaynayaa energy fara badan baa ku jira runtii dalkanna uu u baahan yahay nin dhallinyaraa oo energy iyo aqoonteedii iyo xikmadteedii isla wata uu u baahan yahay intaasna waxaan ka rajaynayaa oo aan hubaa inuu saalax in badan leeyahay runtii ilaahay idankiisna waa ka faa'iidaysan doonaa marka soo dhawow ra-iisul wasaare ku-xigeen wax yar baan kaa soo horreeyey waxaan rajeynaya inaan si fiican isula jaan qaadi doono waanu imaan doonaa iyadana xilligeeda laga hadli doonaa wasiirada halkan fadhiya iyagana oo loo kala xil wareejin doono ayaa waxay soo qabteen iyo waxay rabaan inay soo qabtaanna ay sheegi doonaan fursaddaas laakiin waxaan rabaa dadkaan halkan fadhiya akhyaarta sharafta leh ee xafiiskan ka tirsan runtii waa meesha muhiimka u ah hadda mixwarku sheegayay ra-iisul wasaaruhu oo ama injinkii wax ka dhaqaaqayay dadkii dhaqaajinaya halkan ay fadhiyaan marka waan u mahad celinayaa dadka muddada dheer kasoo shaqeeyay halkan meeshaan soo gaarsiiyey aada iyo aad ay u mahadsan yihiin waxyaabaha waddankan mushkiladda ku abuuray waxaa weeye in waxa la yska rabo inaan dadku aada u ogeyn